هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي أيام هاد هيبة شرف كرامة أمان إسكال ولا لها قالقة. إلهي إسلام كان قدي أنا بحوق حيلاد منك كأنسان. الحمد لله نعمة الإسلام، الحمد لله نعمة الإيمان، الحمد لله على كل حال، الحمد لله دائما وأبدا. ما شاء الله ولا له قالقة سود وهذا ما أنت نوادعو آد قيمة بضن يقصون لقى أركيس إذا هرئي قبرتين. ما شاء الله ولا له قالقة دعاء ولا له قالقة أمانة إذن وذو دعاء آد قيمة بضن إن شاء الله آد كفا إيدي دونتد كفا إيديس إن شاء الله. إلهي سبحانه وتعالى مركو كهلي دعاء وحوير هذا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إلهي سبحانه وتعالى وحليا وإذا سألك عبادي عني أدومض هدي كسؤالا فإني قريب وأن أدوها أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وأن أجيب ياكي إي ماذا أدعيسته وأن أجيب يا أيولي إلهي سبحانه وتعالى أها. نبي عليه الصلاة والسلام نوح ليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال له ليه الحديث النبي كريو كركيس لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء. لا يزيد في العمر عمرك ما سيادس إلا البر برك أي عمرك سيادية ولا يرد القدر قدرتنا معلس إلا الدعاء دعاء ما أهانه. marka walaalaha qaaliga ah qiimahaas ayay ducadu leedahay. hal ducayso xaalad kasta aad ku sugan tahay, wax kasta aad tabanayso, wax kasta qalbigaaga ka guuxaya, ilaahay subxaanahu wa ta'ala weydiiso, ilaahay wuu ku siinaya walaalaha qaaliga ah. qisooyinka laga arkay ducadan walaalaha qaaliga qisooyinka laga arkay. qisada ugu horeysa wiil ayaa ka sheekeynaya carab ah. wuxuu yiraahday wiilkan waxaan ahayn faqiiriin jiddan aad ayaan ahayn buu dhahay. wuxuu yiraahday ducadan ayaan bartay buu dhahay. ducadan ayaan ku ducaysan jiray mar kaste ayaan ducada afka ku hayn jiray buu dhahay. xaalad kaste waan ku ducaysan jiray iyo marxalad kaste aan marayo ducadan ayaan ku ducaysan jiray buu dhahay. ilaahay subxaanahu wa ta'ala risiqa ayuu igu fududeeyay buu dhahay. reero aad iyo aad faqiiriin u ah baan ahayn, maantana alxamdulillah dad waxaana ilaahay subxaanahu wa ta'ala faqrigii ka saaray. waxaana ku helnay fadliga ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyo fadliga ducadan halaga faa'iideysto. qisada labaad walaalaha qaaliga ah ayadana waxa ka sheekeynaya nin imaam ah, masaajid sheekh imaamka ah. wuxuu yiri anigoo masaajidka ku jira saqdhexe ayaa nin soo galay buu dhahay. ninka wuxuu yiraahday intuu tukaday buu gacmaha kor u hoorsaday, wuu ducaysanayay, ilaahay ayuu baryayay, wuu ooyayay, yaa rabbi kor ayuu ducada ugu qaylinayay buu dhahay. intaan ka joogi weynay qaylada ducada aad ayuu kor ugu qaylinayay. ayaan u imid waxaan ku iri maxaa kugu dhacay? wuxuu yiraahday ayay haysata xaaskayga ayaa iga xanuunsan, operation ayay galaysaa, qaliin ayay galaysaa, lacag tala iga rabo $15,000 lacag u dhigantaa, lacagtaasna ma haysto. marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaan u imid, sidaas ayaan xilligan u soo kacay oo ilaahay u baryayaa. ilaahay ayaana ka sugayaa si ii siiyo xoolahaas, waayo ma awoodo, rabbi ayaa wax bixiya. ilaahay ayaana u ducaysanayaa, sidaasaan u qayninayaa. sheekhi meeshiisii isaga laabtay, ninkiina ducadiisii ayuu iska watay. sheekhu wuxuu yiri ninkaas sidoo u qayninayay u ooyayay indhihiisii way guduuteen buu dhahay. subaxii markii waagii soo baryay oo salaadii fajr la gaaray ayaa xilliga masaajidka waxa ku soo tukaday nin saalix ah oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala xoolo siiyay oo xoolihiisa sakada ka bixinaya. ninkii markii salaadii la dhameeyay ayuu imaamkii u yimid. wuxuu ku yiri imaam waxaan rabaa qof aan siiyo sakada xoolahayga oo u dhigma 15,000 lacagti ninku u sheegay cadadkeedii u dhiganta ayaan rabaa inaan siiyo qof miskiin ah. xaaskayga ayaa waxay tiri qayb u bixi, balse anigu waxaan rabaa buu yiri inaan hal mar bixiyo oo qof walaalo u baahan aan siiyo. imaamkii hal mar ayaa ilin ka timid. imaamkii farxad ilaahay subxaanahu wa ta'ala soo degdeg ninka ugu ajiibay. wuxuu yiraahday nin u
u baahan ayaan hayaa. nin ayaa masaajidka xalay yimid saqdhexe uuna ooyayay markaan weydiiyey ilaahay buu baryayay markaan weydiiyeyna wuxuu yidhi xaaskayga iga xanuunsan lacag inta cadadkaa ii sheegtay la-eg ayuu u baahan yahay oo maxasha gabadhiisa ay ku galayso qaliin marka ninkaas ayaa ducadiisa la ajiibay sidaa darteed ayaa la ooyey ninkiina shiikhii buu la ooyey ninkii kale ayaa loo yeeray oo miskiinkaha waa laysla ooyey allahu akbar sidii ayaa ninkii xoolihii loogu wareejiyey cajiib walaalaha qaaliga qisada bal ka warrama soo cajiib maahan markasta ilaahay u tag marxalad kasta aad ku sugan tahay rabbi ayaa kaa kaafin kara bin aadan waxba kuuma qaban karaan hooyada macaan waxba kuuma qaban karto ilaahay subxaanahu watacaala ahaa ayaa kuu qaban kara kaana kaafin kara marxaladahaas maasha allah walaalaha qaaliga marka ducada aan idin wado waa duco risiqa kuu sahlaysa maasha allah ku ducaysa markaste ducaduna aad iyo aad bay markasta muhiim u tahay xaalad kasta oo aad tabanayso rabbi mid ugu sheeg walaalaha qaaliga ducada walaalaha qaaliga waxay ku jirtaa suuratul wadaariyaad aayada waxa weeye 58 inna allaha huwa ar-rasaaqu dhul quwwatil matiin inna allaha huwa ar-rasaaqu dhul quwwatil matiin marka waxa dhihi kartaa allahumma ya rasaaqu ya dhul quwwatil matiin arzuqni allahumma ya rasaaqu dhul quwwatil matiin arzuqni duca ayaad ka dhigaysaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay inna allaha ilaahay huwa ar-rasaaqu midka wax irsaaqa weeye dhul quwwatil matiin quwwad iyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyo awoodba ilaahay ayaa iska leh dhul quwwatil matiin quwwad ilaahay ayaa iskale iyo taag matiin waa xoog badan ayuu ilaahay leeyahay إن الله إلهي هو الرزاق متك وحي رزاق وي دل قوة قوة إلهي مد أصاحب يتاق وي المتين أدق المتين أدق أيو إلهي ليه عجيب ما شاء الله كدو عيسى ولا لها قارقة اللهم يا رزاق دل قوة المتين أرزقني وهي ولا لها قالقة اسمك إلهي الرزاق وكتير آيات ما شاء الله لقى فائدة ولا لها قالقة إن شاء الله فيديو قديه سنة كسو قرية كومنتي كنا وكسو قرية دعاء سيدا إيتاي إن شاء الله إلهي سبحانه وتعالى إرساق واسعة هنسي ولا لها قالقة فقرقة ولا لها قالقة ما في عنا النبي عليه الصلاة والسلام دعاء أي كل فقر دعاء اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ويسجي النبي عليه الصلاة والسلام ده فقرك أي كفر إلهي كما انقلا مرك فقرك ولا لها قارقة ما في عنا يعني آيات دعاء لها تاوي جرتي اللهم اكفنني بحلالك عن حرامك وقنني بفضلك عما سواك مرك دعوي بدن أياكس أروري فقرك مرك ولا لها قارقة marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa weydiisanayna fadligiisa inuu nagu qani yeelo ma sha Allah xoolo aan ku kibrin ma sha Allah cibaadada ilaahayna aan naga mashquulin ma sha Allah marka ayada walaalaha qaariga ku ducaysta ilaahay subxaanahu wa ta'ala faqriga ha ka saaro dadka faqriinta dhamaanteen kuwa niyada iyo qalbiga iyo xoolaha baqaninka Allah naga dhigo aamin ya rabbi